inaynu munkaraadkan iyo dembiyadan ka hadhno weliba waxaan baraarujin lahaa Soomaalidu dhibaatooyinka leeyahay waxa kamid ah bulshooyin dhan oo inaga mid ah ayaa la yiraahdaa naga mid maaha waa ummadii waa la abtirsiimo waa la luqad waa la diin haddana waxay ku leeyihiin waxay gowracaan ma cunno inantayadana ma guursadayaan kala shaqana waa noo shaqadayada ma qaban karaan ama tooda anagu maba qabanaba magaca qabiile hebel waa iska garanaysaa qof waliba uu fahmaya meel walba way ka jirtaa marka waxaan leenahay waa dulmi sidiisa dadka la dulmiyay oo lagu xadgudbay oo aan xaq loogu lahayn waliba waa dad caan ku ah inay shaqaystaan oo ay waxba shaxaadin timuhu xiraayo waa tumaaliyo kabuhu talaabu kuleeyahay laakiin markuu shaqada ka soo rawxo lacagta ka shaxaadaya wuxuu leeyahay bal adiga maanta dhakooyinka soo xiray ama adiga wax soo tumay dhiib marka ninkii shaxaadaya wax liitay ee gacanta dadka hooseystay bariyay ba dadkii xirfadlayaasha ahaa dalkiya dadkaba wax u qabanayay wax ka sheegaya marka waa fool xumooyin aynu leenahay adduunyadana maanta waxaynu ogsoonahay ummadaha waa la urursadaa dadka xirfad iyo aqoon leh America maxay ummadaha kaga horumartay 100,000 oo muslimiin ah ay sanadkan qaadanayaan oo u badan shuruudaha ku xidhan waa dadka dalka ku soo kordhinaya wax aqoon-yahankeeni xirfadlayaasheeni qofka fiisayaashooda waa fiisooyin gaar oo lambar gaar ah leh qofka dalka aqoonta leh baa fiisaha la siinaya soo galaya dad baa la urursanaya adiguna adigoo 4 nafar intaadii kala eriyaysa waa doqonnimo sida u taala iyo nacasnimo dad waaweyn aynu ka tanaasulno ilaahay ka cabsano oo intoo la is urursado horseed ha laga noqdo dulmigaas wulintiisa wallahu subhanahu wa ta'ala